بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيال ميل كسته يقوب كسته هاد نقد دعوانيسان حلقاني halkani waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland studio-giisa magaalada Burco ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeeni qalinka iyo qoraaga waxa caawa barnaamijka marti inoogu ah qoraaga dhalinyarada ah Mustafa Barkhad Cabdilaahi oo loo yaqaan Abwaan Dhimbil sidaad magaciisa ka arkaysaan sidoo kale qoraagu waa halabuur waxa uu ilaa yeemika qoray laba buug oo inta ugu badan uu ku qoray suugaan uu isagu tiriyay oo uu kaga hadlayo waxyaabo kala duwan oo intooda ugu badan ay tahay wacyigelin si uu hadaba bal inoogu faahfaahiyo buugaagta uu qoray iyo waliba qaar kale oo isaga laga qoray waxaan marka ugu horeysa ku soo dhaweynayaa barnaamijka Abwaan Dhimbil ku soo dhawow Abwaan barnaamijka aad iyo aad u mahadsantahay Mustafa ilaa iyo iminka waxaad soo saartay siin wadognahay laba buug labada buug ee aad qortay iyo waliba buugaagta qaar kale oo laga qoray oo jira waxyaabaha ugu badan ee ku qoran adigoo noo faahfaahin doona bar marka ugu horeysa warbixin kooban ama warbixin kooban iska sii dadkeena daawanaya aad baad mahadsantahay marka horeysa waxa weeyaan magacaygu waa sidaas aad soo sheegtay Mustafa Barkhad Cabdilaahi waxaan dhashay sanadkii 1990 bishii 11 san taariikhda ku hayo waxaan ku dhashay gobolka Awdal degmada Quljeed oo 30 kilomitir xigta dhinaca waqooyi magaalada Boorama waxbarashadeedii malcaamadda waxay bilaabay aabahay waxaan ku bilaabay sida halkaan ku dhashay waxbarashadii dugsiyada maadiga ahayd waxaan ka soo bilaabay dawladdeegaanka Soomaalida Itoobiya gobolka Shaneele waxbarashadii dugsiga dhexe waxaan soo wareegay magaalada Boorama dugsiga dhexana waxaan ku qaatay dugsiga Aadan Isaaq oo maanta ah dugsi sare laakiin waqtiga ah dugsi dhexe dugsigii sare waxaan ku soo dhameystay dugsiga qadiimiga ah Sheekh Cali Jawhar oo ahaa dugsiga lagu doortay madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliland Allah naxariisto marxuum Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal jaamacadda waxaan kaga jiraa jaamacadda Camuud kulliyadda waxbarashada takhasuska luqadda Ingiriiska iyo taariikhda caalamka intaas waxa weeyaan warbixin ku saabsan waxa weeyaan habka waxbarasho iyo meelahan ku soo kala qaatay way hibooyinka aad leedahay waxa kamida suugaanta iyo qaybta qalinka iyo qoraalka oo aad ku soo biirtay oo aad buugaag soo saartay ma jiraan hibooyin kale oo ku dheer oo aan taa qoraalka iyo suugaanta mid lahayn horta waxa weeyaan abwaan imikran nool oo ku nool magaalada Boorama la yiraahdo Abwaan Axmed Saciid Deeriye afkuriye ayaa wuxuu yiri aadmiga qofna baylaha maaha ka baabaha deeqda eebe wuxuu bixiyo ku sooray barwaaqada qaybaheeda barka maqan ruuxa haysta barku tabaya ku raacay marka qof walba waxa weeyaan waxa qofkan haysto wuxuu ka maqan yahay qofkan kale kan waxa ka maqan kana haysta marka laga yimaado suugaantaas iyo qoraalka takalana isku arkay waxa kamid ah inaan ku fiicanahay wax tabinta inaan wax gudbiyo oo ma fariin inaan wax sheegi karo taas marka waxa laga faa'iideystay inaan doorto kulliyadda education-ka ama kulliyadda macallimada inaan doorto waxaan isla maadaama waxa weeyaan si aad dab soo saarto macnaha marka xiisadaada dhigaysana aanad noqon qof buurka ama faqiirka ah xaqi wax gudbinta marka taalafteedana waxa weeyaan aniga isku arkay inaan wax gudbin karo oo dad wax u sheegi karo soo jeedin karo fariin u gudbin karo waxa jira buug aad soo saartay iyo buugaag laga qoray oo iyaga laftigooda suugaantaada uu ku saabsan bal marka ugu horeysa intaan buugta laga qoray buugga adigu qortay goormaad qoraalkiisa bilowday buugga anigu aan qoray waxaan qoraalkiisa bilaabay inaan qoro waxaan bilaabay suugaanta diiwaan geliyo waxaan bilaabay 2013 kan bilaabay intaasoo dhan kolba waxa beeraysa suugaan kala soo beeraysa kolba taan curiyo markaan hagaajiyo waxaan ku dareeyay diiwaanka ku dareeyay saasaan soo waday waxa ila soo gaadhay dabayaaqadii sanadkii ina dhaafay ila soo gaadhay inaan hal mar go'aansado
inaan si iskugu ururiyo haddii ta mataqaanaa habkii iskugu xigxigeen aan u qoro markaasay usoo socotay sanadka 2 sano marka laga reebo sanadka inaan ku jirno 2 sano soo wada qoraalkiisa 13 iyo 14 ilaa 2 sano si fuul u socotay laakiin waxa go'aankeeda dambe aan keenaa go'aansaday inaan ka dhigo buug oon soo saaro suugaantii oo aan joojiyay sababtoo markaan labadii bilood ama bishii mar waxa soo baxaya maanso cusub kadibna halka hore ku daraya hadana dib baan anigu u galay dib baan u habeeyay u tafaftiray wixii kala dhammaan ku daray silsilad jacayl oo aan markii hore aan bilowgeeda lahaa oo dhalinyaro badan hal abuuro oo waxa weeyaan ku kala nool daafaha caalamka oo ayaan bahda Facebook uga sameeyay qol kadibna halkaas nin walba ku soo diri jiray jawaabta tiiba markaa hadana ayaan iyadana ku daray marka buugan waxa ku qoran suugaantaadii taas silsilada ah oo asxaab badan ay ka qayb qaadatay adu suugaan u koobsanaysa laakiin suugaantaadii oo soo maaha ha 80% waxa waa suugaantayda 20 ka soo hadhana wuxuu qaybsan yahay waxa weeyaan 15% silsiladaas iyo 5% waxa weeyaan maqaal aan kaga sheekeynayo suugaanta iyo bulshadu sida ula soo noolayd iyo hadba halka la joogo sida suugaantu ula jaan qaadayso bulshada nolosheeda bulshada aragtideeda iyo bulshada hanaan socodkeega hadba sida ay ula jaan qaadayso suugaantu aan kaga sheekeynaya isla suugaantu kama hadlayso waxa kaas xataa habkii dadku u soo noolaayeen iyo suugaantu si kolba uga jawaabi jirtay marxaladda lagu jiro maqaal noocaas iyo hal gabay maadaama inta badan suugaantu ay tahay wacyigelinta dhalinyarada iyo wadaniyada waxbarashada iyo qiimaha ay leedahay iyo dhacdooyinka kale nolosha caalamka iyo ta Soomaalida maadaama inta ka hadlayso waxaan ku xusay gabaygaas gabay la yiraahdo dibba taala marka waxa curiyay nin la yiraahdo Awil Cali Waraabe oo Luqmaan loo yaqaano jooga wadanka Mareykanka magaalada Minnesota wuxuu kaga hadlayaa qurbaha dhibaatada taala marka waxa ku jira gabaygiisa dibba taala dibadaha ninkii dherig u haysto way marka gabayga baan ku xusay waxaan u doortay wax kale ma maadaama aanu ka gabiyo taariibka ninka jooga dibta ka sheekeynaya yaan soo ku xus reebeyska damaan ku qoray xusid inaan ninka ku xusay inuu gabaygaas uu leeyahay inuu ku daro waxa ugu soo dartay si bulshada uga faa'iideysato u gaaro bulshada u gaaro waxa markaan bandhigayo runtii inaan habeenka waxa ku daro gabayada aan bandhigayo oo ka mid noqdo ayaan rajaynayaa hadii ilaahay buuga maxaad bixisay buuga horta waxaan u bixiyay magaca milga dhawr marka milga dhawr waa gabay ku jira buuga waana gabayga ugu horeeya marka habka aan u qoray buuga gabayga aniga curiyaa marka habka buuga aan u qoray wuxuu yahay buugii hore isku dhex daadsanaa oo waxa weeyaan gabaygu haduu doon dhexda ku jiray xagga hore ku jiray xagga dambana ku jiray gabayda godka gabayga la yiraahdo waxaan sameeyay wax loo wixii gabaya ahaa ee godkii gabayga lahaa ha dheeraado ama ha gaabnaado halka horaan dhigay sababtuna chapter gaar ah ha cutubka koobaad baa waxaan ka dhigay gabayo sababta ugu soo horreysina waxa weeyaan maansada waxa uu aabba ka soo farcantaa gabayga waxa ku xiga geeraarka waxa ku xigta jiiftada waxa soo hoos gala heesta iyo balwada iyo buraamburka iyo waxyaabaha kala godada kala suugaanta marka saasad soo kala mudnaayeen yana kala horreysiyay buugana saas ugu taala marka intaas oo qaybood hadii aan dhinaca suugaanta su'aalka weydiiyo intaas oo qaybood ee suugaantu ay ka kooban tahay mid ka gabay horta waxa weeyaan godka gabayga waan ka gabiyaa jiiftada heesta oo iyadu jiiftada la xidhay laakiin ka yar duwan iyo wax loo yaqaan balwada afar taagud ayay ka gabay oo iyo geeraarka shan taagud oo shanta Soomaalida ugu caansan ayaan turidi ka qaata waxaan ku sii badanahay godka loo yaqaan jiiftada sababta waxa la jiiftadu dhaqan ahaan waxa weeyaan godka ugu daaweyn ugu caansan marka waxa jiifta loogu bixiyo waxa weeyaan dadku markay xoolahooda soo hoystaan ay habeenkii soo xeroodaan awdii walba isagoo xoolihiisa hor jiifa oo golaha jiifa
ayuu kale golaha kala jiifa isagoo jiifa ayuu u tirin jiray iyo suugaan curinay tixbu sameeyay marka qaabku uu sameeyay jiray godka gabayga ma ahayna waxa habka in loo yaqaan jiiftada loo aqoonsaday waa lagu bixiyay marka suugaantii jiifka la isku gudbinay jiifsilo marka xagaas laga keenay magaca jiifto marka waxa weeyaan godkaasaan ku badanahay inta badan way bal haddii aan su'aalka weydiiyo dhinacan qoraalka akhriska isaga isku tii horta waxa la waxa weeyaan qofka wax akhriya unba waxna qora qof wax qoraya oo aan wax akhriyin ma jiro hadduu jirana qofkaasi wax ma saxi karo sababtoo ah haddii si kale loo akhrisan weydo habka uu buug u qoran yahay oo eegto ayaa wax akhrisa soo kala horeeyaan Google Dhiga mahadnaqa hibaynta tusmada buuga intaasoo eegtiba qof wax akhriya tahay way bal markay qalinka ama qoraalka inuu ku guda jirnaa sidee baad u aragtaa ama aragti noocee baad ka haystaa dhalinyarada facaga ah ee wax qorta ee Soomaaliland oo joogta horta waxa weeyaan dhalinyarada qaar badan waa oran karaa waa iga dadaal badan way ayaa jira way waxa weeyaan waxaan leeyahay kuwa Allah idin siyaadiyo wala si bogaadinaya way jiraan rag badan oo iga dadaal badan iga akhris badan ma jirta qaar aad buugaagtooda akhrido oo kula facaho dhalinyaro ah oo buugaagtooda aad xiisayso ama aad akhrido ma jiraan horta waxa weeyaan haddaan idhaa ku iyo haddaan qaarna sheego qaarna ka tago loo sheegay inta soo gaadhay dhalinyarada ay qoreen oo ha u badnaato suugaanta ha u badnaato inta soo gaadha soo marta buugan akhriin ma jiro marka way jiraan buugaag dhalinyaro qorto aad akhrido waa dhalinyaraha facayga iyo kuwa iga yar intuba ay qoreen oo akhriso way jiraan way jiraan kale aad qortay magaciisa maxaa la yiraahdaa buuga kale waxa la magaciisa Geexmaal baa la yiraahdaa Mustafa buugaagta aad qortay waxaad u bixisay magacyo adag oo Soomaaliga dhaqanka ahaa ama asalka ahaa dad badan oo laga yaabo inaanay af Soomaaliga asalka ama dhaqankeena wax badan aanay ka aqoonin waxa laga yaabaa magacyadan ku adkaadaan falcelin nooceeya ama aragti nooceeya bulshada kaaga soo noqotay horta waxay iga soo noqotay laba arag buugii hore waxay ka soo laba aragtiyood kan inuu soo bixin buu soo socdaayo sida dadku hadda markuu soo dhex galo waxay su'aal ka keenayaan way uma ka jawaabi doona hadii la yiraahdo way laakiin buugii hore Geexmaal laba arrimood bay ka soo noqonay way dadka dhalinyarada ah qof aan i weydiinin ma jiro maxaad Geexmaal ugu bixisay Geexmaal waa maxay way taa marka waxaan ugu bixiyay waan karayay inaan magac loo garanayo bixiyay way laakiin erayga sii dhimanaya carabka dadka ka sii dhamaanaya inaad dib u soo nooleeso buugaaga aad ugu magac darto ayaa mudnaanta leh sababtoo maxay markuu qofkaasi uu su'aal ku weydiiyo ama uu qof kale weydiiyo qofkaasi gabaygaas laba eray isku jira Geex iyo Maal kadibna qofka uu la tago weyn ee wax ka garanaya erayada dhaqanka ah uu sharaxaya kadibna sidaas ku baranaya isla laba kale uu sii sharaxaya eraygii baa soo noolaanaya markaa magaca bixintu waxay ka tahay eray soo nooleyn eray soo nooleyn iga tahay oo rag badan waxay wala taliyeen waxa weeyaan marka gabay u bixinaysa magac gabay walba magac buu leeyahay jiiftooyinka ku qoran buuga ama gabayada ama geerarada ku qoran mid kasta magac buu leeyahay waxaan isku dayay marka mid kasta magacaan u bixinayo inaan uga soo dhaxo erayada ku jira erayada da'da ah erayadii hore ah daada ah inaan soo qabto kadibna qofku isweydiiyo waa maxay magacani marka halka ereyo badan ba soo noolanaya haday 3 maanso ama 30 maanso ku qoran yihiin oo mid walba magac daadii hore ah leedahay de 30 erey ba soo noolaaday kuwa kale waxaan ku boorinayaa in fikirkayga in marka ay sameynayaan buug ama magac u bixinayaan ama ay gabay ama geerar magac u bixinayaan inay uga soo xulaan ereyga daada ah oo inay is oran kan la garan karayo ku yiri ku la garan karayo soo qaad waxa su'aalaha ka timaado hal la isweydiiyo laakiin hadii wixii la isweydiin ba waayo de waxa weeyaan wax noqonaya wax la soo garanayo moogta waxaan ku arkay heesahan dambe ee la sameeyo inay ku jiraan erayo suuqdiya erayo iska suuqdiya de waxa weeyaan horta ma soo dhaweynin waxaan jeclaan lahaa waxa weeyaan dhaqanku abwaanku markuu ama heesa sameeyo ama gabay ha sameeyo inay heestiisu
ku jiraan erayo oo ku nisku suugaanta wax kala maaha suugaanta waa halka waa murtiduna waa halka lagu kaydiyo dhaqanka marka maadaama uu abwaanku yahay kaydihii dhaqanka soo nooleeyihii dhaqanka cilmi baarihii dhaqanka uu yahay de waxa qurux badan in erayga dhimanaya soo nooleeyo laakiin hadduu yidhaahdo ka yar iyo ka weynba heestaada ha fahmaan ee suuqdi ka dhig de waxa weeyaan kaas ma noqonayo marka abwaanda wuxuu abwaan noqonayaa de inta imka garaadsanayso abwaan noqonayo wax badan laga faa'iideysanayo way inta badan waxyaabaha aad isku hawsho maxaa kamid ah abwaan dhibay waxyaabahan isku hawlo horta waxa kamid ah waxa weeyaan inta badan isku hawlo qof walba horta hawl baa u taala tu naftiisa u taalo hawle xilweyn ka saaran waxaan qofku u nool yahay iyo noloshiisa halka u socoto iyo inuu noloshiisa de habeeyo oo noloshiisa meel ku tiiriyo aw salka iska dhiso tii public ahayd marka loo yimaado ama tii guud marka loo yimaado anu waxa weeyaan aad iyo isku hawlaa runtii waxa weeyaan waxa wadaneeda leeyahay dadku inay wada lahaadaan dadku waxa weeyaan inay taqaanaa ayna dib isku geysan dhalinyaradu ay ahaadaan dad isku calool furan waxa weeyaan oo ka faa'iideysta dadka aqoonta badan ka faa'iideysta ee noqdaan anu ala kulli xaal waxaan aad iyo aad u jecelahay waxyaabaha jecelaha kamid ah public danta guuda wax wadaneeda leeyahay qofna yacnaa qofku inuu meeshiisa wax ku yahay meesha uu joogo oo ilaahay dhigay inuu wax ku yahay waxaan inta badan aad uga soo horjeedaa oo aad iyo aad u cambaareeyaa eragaas cusub bulshada ku cusub cambaareyntaas dadka taariibaya dhalinyarada taariibaya noloshayda waxa weeyaan intaan taariibkaas socdeen garanayo saaxiibo badan baan ku waayay taariibkaas ilaa maantana ima nolol dhaamaa intii taariibtay nolol ay dhaamaanay ma jirto ama kaan ku jira waa qaxooti ama isaga waxa weeyaan inta nolosha inta siro laga soo bilaabay sidii ciyalka la koriyaa sida xala qaran badhiga ka sheegaynay wuxuu nolosheedu yacnaa imika meel hoose sii gashay marka waxyaabaha ugu badan aad isku hawsho waxaa kamid ah waxay gelinta dhalinyarada dadka dhalinyarada boqolka qalaad yaad ku wacyi sidee ayaad u aragtaa ama qaabkee ayuu kula muuqdaa qoraalkii af Soomaaliga xilligan iminka lagu jiro qoraalkii af Soomaaliga ahaa marxalad noocee buu kula muuqdaa in maray horta markaan dhinac ka eego markaan arko arday dugsi sare ku jira ama arday wali jaamacad ku jira oo 2 buug 3 buug qorayo ma arko horta aad baan ugu farxaa haddana waxaa Soomaalidu ku maahmaahdaa nimca kasta nuqsaan leh nimca kasta soo korodha nuqsaanteeda leedahay waxaan jeclaan lahaa dadka horta buugta loo soo bandhigaa buugta waa shacabka waxaan jeclaan lahaa qofka buug qoraya horta buuggiisa inuu waqti siiyo ugu yaraan 1 sano 2 sano sanad iyo badh inuu buuggiisa siiyo laakiin haddii buuggii waa ku soo baxo 2 bilood madaxweyne sito te waxay taasi keenaysaa waxa Soomaaliya waxa mahmaaf carabi ahay wala Soomaaliyeed haddii maraq macaanada bariis ka xumaada sababtaas ma hada quraanka iska bato waxa xullo u badnaanaya marka waxa weeyaan dadka warbaahinta saalahan dadka website wax ku qoray warbaahinta ah waa hala kaliya haatay af Soomaaliya laga kabi karo haddii aad maanta wariyaha kula yimaado qof maqaal aduu saxaafada tahay badan ku dhex jirtay saxaafada maqaalkii marka akhrido website iska gelin horta miisaan laba mid yeelo marka inaad qofka tira waxba ka yar qaldan soo toosi yaa adigu qofkii isku hawsho inaad adigu wixii u hagaajin karto ka ogolaado dadka ka ogolaanin ba jireen hadduu ka ogolaado hadii ay toosiso oo u hagaajiso sababtuna wax kale ma waxaan bulshada u sii deynaysaa ilmo yar baa dhageysanaya qof yar oo imika af Soomaaliya waxa la helayaa ku jecel qoraalka jecel oo yar oo standard eeda hadduu maanta sidaa wax u qoray kaasi hadduu arko dadku inay soo dhaweynayaan oo dadku jecel yihiin saa wax loo qoray isna saas ka daran buu qoray keeno ku dayanaya Soomaa waxa wax ka daran buu sana qoray markaas qoraalku tayo u yeesho waxa way horta kow waxa ba jecelahay mustaqbalka in la sameeyo wakaalada waxaan miisaana oo intay waxa yaga aan qorno ka dhigno la eego oo dad khubara inta loo soo fariisiyo
dhalinyarada wax qoraalka batay maadaama qoraalkii batay qoraalka tayaha yeesho say u tayo waxa loo baahan yahay dad khubara oo dad mataqaana qoraalka aad iyo aad u xoog yaqaana af Soomaaliga aad u yaqaana oo dhalinyarada lahayn oo aniga aan ku jirin waxa weeye dhalinyarada waxa weeye amaan ka mid kahay waxaan u baahanahay toosin aad ah buugaagtaada soo sheegtay Mustafa waxay u badan yihiin dhinaca suugaanta buug aan suugaan ahayn ma ku qorshaysay inaad soo saarto buug aan suugaan ahayn oo aan suugaan ba meel ka soo gal horta mid baa jirto de waxa markaan buug qalinka u qaato wuxuu ada wixii doonaa baan ka qoray de horta waxa weeye suugaan waa naga micnayno wixii farshaxana ama maqal qurux badan noqoto ama sheeko dhacdo oo qurux badan noqoto wax soo suugaan noqonaya de waxa weeye afka qaraabo kale wax ma qori karaa luqadda Ingiriiska oo maqaalo badan oo hayo oo de habeen dib u gareeyeen dad suuga English wax yaqaan oo la tago oo ka saaro book ka saaro book oo dhici karta de macallin oo noqon doona kulli wax weeye inaan book qoro de wax weeye hawli tahalaba way dhalinyarada af Soomaaliga wax ku qorta ama dadka af Soomaaliga wax ku qora iyo kuwa afafka kale iyo luqadaha kale wax ku qora kuwaad xiisaysaa adigu ama aad jecesha qofka Soomaaliga ayaa luqad kale wax ku qora yaka luqadiisa wax ku qora aniga waxaan tixgeliyay jeclaa qofka luqadiisa wax ku qora sababtoo luqadda kale ma leeyihiin waxbaan ku baranay waxaad ku baratay iyo waxaad ka dhaxashay ee adigu aragtay erayga aad aragtay ee xigmadda ah af Soomaali ku bedel dadka af Soomaali ugu qor waxa aad iyo aad u amaanay inta ka bixin min la Ismaaciil Tukaale oo runtii waxa weeyaan waxa wixii buugaag أو هني كريي يوحوا إلا صدح بوق أفر بوق ما إنا تانفليا دانا قلبي صدح بوق غرت ما عاركي وأف عربي كقرنا وحكمة وناكسنها ويكمل تهاي نوحوا مارا نرش هذا وتقولي سن كرتا بوقتي نوعها يو كون بوقتي بكون بديها في الصومالي وكان والله قوي هنا كلنا xigmadaha aad haysaan iyo qisooyinka aad haysaan ee markaad xafladaha ama barnaamijyada ka hadlaysaan leedihiin Einstein wuxuu sidaa iyo sidaa ee Ingiriisi wada ku soo aqriyeysaan waxa soo Soomaali bedelo dadka uga faa'iideeya Mustafa gabagabadii barnaamijkeena ku jirna ma jiraan naadiyaasha akhriska ee dalka ka jira naadi aad ka tirsan tahay oo bahda akhriska iyo qoraalka ku abtirsada ها وأنا كتر سنة واحد ويان إنك واحد أبدل الأكاديمي لكن وحو هانشري بريجي هو النادي بندق علمي عقلك هو حكم ده النادي اللبعض اللي قسم يو قبل كعوض وحنا رنتي النادي إن بدن أديجي بالشدة نادي دي براي تدخل فقارة كهال كران إيه ده سؤال ودين كران إيه يبغى حسوي شيء دين كران إيه قبل كران إيه كنت ترتل كران فقارة نادي وجداله بها وروح نادي وجداله كبرنا markii dambe wax u bedelay wax weyn akademiga horumarinta cilmiga caqliga inta badan shaqadii hadana uma sii wadnaan naadiga wax weeyaan in la kobciyo akhriska iyo qoraalka wuxuu ahaa naadiga xilligaas suugaanta bilaabay waxa jiray wax loo yaqaan kacaankii naadiyada 2009 ilaa 2010 oo de halkaraan oo waxa weeyaan aan burcala joogo iyaga naftooda waqtiga la sameeyay Soomaaliland waxa runtii waxa naadiyada ugu horeeyay ee laga sameeyo intaana si labada su'aalood galin bal ka waran magaalada Burco ayaad caawa marti ku tahay oo aad la joogtaa adigoo ka yimid magaalada Boorama magaalada Burco markii kuugu horeysay horta waxa weeyaan qof kasta wuxuu weydiinaa Burco markii kuugu horeysay marka ku dhahaa wala yaabay sababtan gareeyay laakiin Burco markii uu horeysay ahayd nasiib wanaag markii uu horeysayna waxa ku soo hayay runtii wax weyn naadiga halkaraan oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo sababteeda lahaa inaan fogaanta inta la eeg soo maro Boorama ka yimaado Burcadoogo joogo maxaad ka aaminsanid markii uu horeysay magaalada Burco maxaad se kala kulantay waxa weeye wata waa fikir aad iyo aad wanaagsan su'aalaadii wanaagsan magaalada Burco waxaan ka aaminsanaa markii hore inkastoo mid baa jirto muwaayadii hore mise sanadahan dambe waxa meesha laga sheegay ma qaato ilaa soo arko laakiin berigii hore waxaan maqli jiray magaalada Burco
qof kasta bud iyo toori bus kasta qof kasta bud iyo toori ayuu sitaa laakiin markaan soo galay habeenkii ka sii horeeyay habeenka saa weyday dhowr saac kadib barnaamij baan ka qayb galay halkaraan adiga halkaraan qabanayeen marka nin baan la kaftamay dibadda isku aragno isbaranay guudka hudheelka dibadiiso waxa ku yiri waxa weeyaan tooridii meelaha soo dhigatay markaasuu yiri inuu iga sheekeeyay isagoo arrinkaas aad moodayso inuu de waxa weeyaan ayna waxba ka jirin laakiin la baabuurin wuxuu waxa waxba kama jiraan waa baabuur horta magaalada Burco taasaan markii hore ka aaminsanaa laakiin intii way noqon weyday laakiin reer Burco xagga bandhigyada barnaamijyada kala bandhigayo magaalo kasta ku taalo Soomaaliland waxbay dheer tahay magaalooyinka kale wax laga buurana kala joogo casarkii soo baxdo waxa arkaysaa dhalinyaro u badan hablo oo buug wada sita dhammaantood buug wada meel ama barafad Ingiriisi tagayaan ama xiisad jaamacad ay galayaan ama meel wax ku soo baranayaan oo dumar badan wariga galabtii oo kale oo buug wada sita arkaysaa marka laga yimaado laga sameeyo waxyaabaha kala duwan marka xilliga laga soo raaxay iskuulada laga sameeyo taas laakiin galabtii waxaad ku arkaysaa ardayda oo intooda badan buug wada sita oo hablo u badan wariba ee arkaysaa magaalada Burco markaan imid barnaamijka ka qayb galay ama anigu baan jeedinay habeenkii dambe reer Burco waxay aad iyo aad u dheer yihiin dadka kale kuna amaanaya qofka barnaamijka soo fadhiista ee barnaamijka dhageysanayay barnaamijka waxa weeyaan kaalin buu ku leeyahay mugle kaalin wuxuu ku leeyahay mugle lagu xisaabtami karo oo qofkii wuxuu qof walba halka fadhiya waxa u diyaarsan su'aal buu diyaarsan waxa kale markuu meesha fadhiyo qof hadlayo ma arkaysid hoolka waxa la dhuuxayaa waxa qof furiya la dhuuxayaa erayga ku adkaaday fahmeen waa loo uu qoray isla markaan la soo saaro erayga maxad uga jeeday dadka ugu badan ama dhalinyarada ugu badan waxa jecel yihiin sugaanta jacburka laga sameeyo dabcan ma adigu waxaad ka mid tahay dhalinyarada qaybta jacburka sugaanta ka sameeyso oo dhowr maasooyin ama gabayaabaad ayaad ka sameysay bal marka barnaamijka waxaan ku soo xireynaa mid ka mid ah gabayadaasi jacburka bal marka adigu midaasi noo doo aad baad maadsan tahay Mustafa waxa weeyaan jacburku horta waxa weeyaan laguma badna waana xubin loo baahan yahay oo waxa weeyaan xaloo kale marka barnaamijka bandhigeennii waan ku soo khatimay dadka wada qoslaya oo wixii kale oo dhan bay iloobo barnaamijkan iyagu wada qoslaya ku khatimay ayaa iska baxay marka waxa weeyaan jacburka dhowr abwaan baa oran jiray suugayahanadii hore ha ugu badnaado abwaanka loola jeedaa naxariista doodaan facan dambe dhalinyarada dambe 80 ka dhashay anaga macallimiinta noo ah waxa jacburka aad iyo aad yaqaan macallinkayga abwaan budin aniguna markaa waxaan sirin maadaama macallinkaaga curinayo adiguna bal isku day koorta kuwa badan baan sameeyey laakiin waxaan soo qaadanayaa mid baan soo qaadanaya marka laba qaab baa loo curiyaa qaab waxaa la isku dhex daraa qaab laba luuqadood mid luuqada ingiriiska iyo mid luuqada afka Soomaaliga haddaan soo qaata macallinkayga abwaan budin oo kale wuxuu lahaa waxa weeyaan hayeeshe Monday-gii dhaweyd waadigaan imane oo bi haari caawan ku sugi inaan israacnaaye inkastoo dhulkuba reeni yahay waan adkaysanay aan bareelo weyn baan sitaa kuuna iibsaday iyuuna inaad tahay midaan abid ilaa weyn marka midwaan noocaas midna waxa weeyaan hab waxa loo curiyaa iska caadiya Soomaaliga laakiin waxa looma eego gabay jacburka xarafaaca looma eego laakiin qaafiyadii iyo miisaankii waafaqsan yahay habkii sugaaneed leeyahay uma loo tixgeliyaa waxaan kusoo qatinayaa mid wuxuu ku qoran yahay labadaba bug mid kamid ku qoran yahay waxa la magaciisa ammaan xiiran waa wada meesha ammaan xiiran te waxa weeyaan waa ammaan yacnaha nuxurkii ka maqan yahay wiil iyo gabadhba markaas ammaanaya aad bin isku jecel yihiin labadu midba midka kale ammaanaya gabadha waxay ku bilaabaysaa wiil yahay jacaalkaad xadaad xeeb ku xidhataaye
xilliyada kuleelkana dadkaad kala xerootaay xaasaw anjabin baa tihiyo naalo xoog badane xarakaynta hadalkaagu waa neef xabeebsaday xaragada mageydida dhexdaad buush ku xidhataaye xawaajiidahaagu waa eber ilan xaasid baa tahay xaqiiqdii anuun baa ku jecel xamar lamoodiyo wey adigaan raggaba kaa xushee kuriga soo xiro wuxuu yidhi qalloocay qalbiga waad dhex mirataay muuqaaga goortan arkaan muxuba boodaaye ma og tahay baryahan dhow inaad sii baseriyowday suulashaadan dheer buu nafluhu barax ka qaadaaye wejigaadan quruxaystay iyo qolofta guudkaaga gebi ahaanba qaabkaaga waa diin ganoodsaday soo daysa maansada adaan kuu diyaarhay waxaa tidhi mafiiq baa tahay iyo marashadaan weyne macaan jecesha iyo adigaa ka mudan muro xareeraade quraanjada madow baa tahay iyo mas iyo yaanyuure cishqi igu marnaa abaan jeclahay inaad guddoontahay iga qabo dartaaba indhuhu ii qarqarayaan dhididkaasina kusoo koobaynaa aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay abwaan dambiil